hesho waxaad rabto oo isbedel hadhow aad mahadiso noloshaadu ay ku faraxdo oo noloshaada mustaqbalkayga go'aamiyaad heshaa. It depends on how much you want. inta aad rabto intee in leeg baad rabtaa waxan, intee in leeg bay kaa go'an tahay inaad noloshaada bedesho, intee in leeg baad u hamuumiyo ciil qabtaa inaad noloshan aad ku jirto to ka fiican rabto, intee in leeg bay baahi iyo gaajo iyo haraad iyo ciil iyo calooliyo ku hayaa in aad isbedel noloshaada ku samayso. Whatever, every angle and every side. dadka xiriirkaad la leedahay inaad bedeshaad doonaysaa, afkaartaada inaad bedeshaad doonaysaa, shaqadaada inaad bedeshaad doonaysaa, aaminsanaantaada inaad bedeshaad doonaysaa, qanaacada naftaada inaad bedeshaad doonaysaa, dadla dhaqanka iyo rajooyinkaad haysato iyo fikirkaagu mid togan iyo mid taban mid ku. Therefore dhakhtarku wuxuu u baahan yahay change ama isbedel, macalinku isbedel buu u baahan yahay, injineerku isbedel buu u baahan yahay, waashmaanku isbedel buu u baahan yahay, madaxdu isbedel bay u baahan yihiin, ardaygu isbedel, mid taban iyo mid togan, mid saxa iyo mid khaldan. saddexdaas shay markii haddaynu fulino aqbalno inaan saddexdaas shay qaadano oon aaminsannahay inaan isbedel nolosheena ku keeni karno oo nahay anaa hananaya noloshayda, anaa hanaqaadka naftayda ka shaqaynaya, anaa u hawlgalaya naftayda, anaa u halgamaya hankayga, anaa u dhididaya oo hadhow dheefsan doona dhididkayga, anigaa aqaabeeyaha noloshayda, anaa mustaqbalkayga dhisihiisa, anaa natiijadaan helayo diyaariyihiisa, aniga xayaatii waa waxay gacmahaygaan ku samaystay. waan aaminsanahay inaan isbedel keeni karo, waan aaminsanahay in isbedelkaan keeno maxsuulkiisa uuna ilaahay abuurtay jeclaa uuna igu hungayn doonin oo ilaahay waan qabaa sacrifice-ka iyo maxay ahaydeen uhuridda iyo intii kale. waan rabaa inaan ka weynaado in dadka dhaliishoodu i dhibto, waan rabaa inaan ka weyna ku talaabsado, waan rabaa in dhaqaalahaygiyo miisaaniyadda lacageeda aan haysto individual inay isbedesho, waan rabaa meeqaamka aan bulshada kaga jiro inaan isbedel ku sameeyo, waan rabaa the social status ama martabada aan bulshada kaga jiro dee inaan bedelo, waan rabaa in shakhsiyadayda aragtideediisa wax u aragtay aan bedelo, waan rabaa sidaan u fikirayo inaan bedelo, waan rabaa sidaan wax u qabtay inaan bedelo, waan rabaa sidaan wax u milicsaday inaan bedelo, waan rabaa sidaan dadka ula dhaqmay inaan bedelo. waxaasoo dhan oon rabay inaan bedelaana saddexdaas shay iga baahin. saddexdii shayna waan aqbalay, way kaa dhan tahay, way to go. dariiqaaga raac marka, dabada xajisa dariiqaaga iyo waxa kugu caawinaya iyo wanaag ku gaarsiiya oo nolol wanaag iyo qurux iyo jacayl iyo maxabbi iyo wanaag iyo farxad iyo didiila ka buuxda aad ku noolaato isbedelkaad ku gaari lahayd. saddex shay baa kaa hor jooga. saddexdaas shay ka maaran, ka saar naftaada, ka xalmaankaaga, naftaadana ka daahiri. saddexdaas shay waxa ugu horeysa horta shayga fundamental base waxa kaa hor joogoo dhani waxa weeyaan cabsi. cabsida marka luqadda ingiriiska lagu sheegay waxa la dhahaa fear. balan sharaxna horta cabsidana maxay tahay. 95% cabsiyaha uu bini'aadanku haysta ee maskaxdiisa ka dhex guuxaya ee mar kasta noloshiisa halgaadinaya ee dib ula hadhaya ee dib u jiidaya ee horumarka u diidaya ee ka hor jooga helidda wuxuu rabo waa cabsi. cabsiyaha 95% boqolkiiba 95 bini'aadanku ku dhacana waxaa lagu sheegaa inay yihiin kuwo imaginary, kuwo khiyaala dee, kuwo qofku iska samaysteen wey oo haddii la dabagalo la dabaguro aan la helayn xaqiiqo salay ku hayaan. fear baa lagu dhahaa ingiriiska cabsida, bal fear waxay u joogtaan sleegana dadka ingiriiska ama luqadda ingiriiska waxaa lagu dhahaa cabsida fearna bal waxay u dhigantaan eegana waxay u dhigantaa f waxay u joogtaa false waa been, ed waxay u joogtaa evidence waa caddayn, ed waxay u joogtaa appearing waa u muuqata, and art waxay u joogtaa real. markaa fear xabadaan u kala qaadneen, xabad walba waxay tahay sheegno waxay isku noqonayaan false evidence appearing real. soomaalina waxay ku noqonaysaa caddayn beena oo u muuqata run. and cabsidu cabsida inuu qofku tanaaduu horu maro oo uu hore u dhaqaaqo oo uu tusaale noqdo oo qof lagu daydo hadhow tusaale adduunka ku hadhan noqdo oo taariikhdiisa la mahadiyo oo wax wanaagsan laga sheego, si fiican u noolaada, si fiican u dhinta, si fiicanna ilaahay u soo saaro ilaahay sawla kulma. inaad intaa noqoto saddex cabsiyood baa kaa hor jooga. cabsidana waa anigaa sheego 95% of the human fear waxa lagu cabiraa inay yihiin imaginary, wax khiyaala oo beena oon jirin oon sal iyo baar lahayn, laakiin still uu inaadan ku dhegsan yihiin xajisadooda.
ilan cabsidaad isbeddelka kaa haysaay definitely waxay neutralize garanaysaa ee badhxaysaa rabitaankii xoogganaa iyo dawharaadkii iyo wihilowgii waxaad rabtay inaad hesho ayaa badhxaysaa halkaasay kugu joojinaysaa marka waxay kaaga dee waa hawlihii shaydaanka